وأنا أذكر البداوة وحلا إلى هذا حيصتا بدوني ماذا غير مني ماذي عادي هيدو كما تشهدوا لكن ما حنقول هذا عدم التحضر تاريخ ذولي ويكما صحن قد تاريخ ذولي هوري وحكوب بينيان تاريخ ذولي ويكالون وحيصاب بحندان حضارة ضاحي بدوني ماذا وحيابا لغو يقانو عانا بيلاد وحيابا لغو يقانو عانكا وحكم ده الفوضى وعدم الانضباط ما جعل ماملك بوح الله يراهو ماملك الله يراهو ما جعل ونوع آدم مامل معب وحلقت الماما الأستاذ محمد قطب كتاب سواقعنا المعاصر هذا أفر بقول سقاشن يلبا أيوه حكوت المامية وعند منطقة يكونوا لين ذاتك مسلمين تاعي قبل لا يدقين وقبل لا كل البيت وبيئة أنت بدن فوضوية أما وبيئة أن مامل رسمي أنت بدن خضوعين ودد بيقولون لا شيء أنت بدن سيسي حلا يسقط ماذا ويبيقولوا وضنا كل الوحى عادية أما بدن إن أنت فوقاتشوا دمان raashin yar yar inaynu ku fillaado ila meeshu dhaxan ma laha caynkaasi ma ahay waliba waxa caadiya buu yidhi inaanay u arag mustaqbal badan oo laga sii fakarayn maskaxda lagu daaliyo inay iska dhib badan tahay maantaba mar haddaad nooshay barriina deesaad maanta u noosho bay la mid tahay ka gedisan maantaba waad joogtaa waxbaad cunaysaa saa dambana kadalik caynkaa un bay noqon doontaa arsaaqdana ilaahay baa qaybiya subxaana wa tacaala dabeetana waa ummad iska fawdawiya buu leeyahay mashkilaadkooda si cafawiya uga baxa aan aqoonin in mustaqbalka wax loo dhigo ama in badan la daraaseeyo ama in badan la odoroso la eego waxa ka soo socda waxa kaloo lagu yaqaanaa ummadda reer badwiga aynu ku sheegayno alcunf wa surcat ittikhaadi alqaraar maamul darrada waxyaabay keentay ka mid tahay waa dad hadday wax qoonsadaan jecel inay xoogga ku suuliyaan qofku biniaadamka waxbuu qoonsan karaa laakiin in xoogga la isticmaalaa maaha hadda best solution ama the only solution meesha yaalla maaha waa dad markay wax qoonsadaanna jecel inay xoogga ku dayaan ninka soomaaliga weliba markaad u fiirsato nin soomaaliyeed haddaa isqabataan markaa isdishaan unbaa laydin garnaqi karaa saca kaa maaha dhaqanka soomaaliga haddaa nin soomaaliyeed isqabataan horta waa inay isgashaan marka hore laydinma kala qaban karo marka ay isdishaan kadib laakiin waa ogolaya inaad garantaa labadiina waa fadhiisanaysaanoo dadka waa ogoshin in laydin garnoqo marka hore sima ogolid in laydin garnoqo waa badaawadu waxyaabahay leedahay cadamu taxadur ama dadku markaan valuesku aad qiimo ugu lahayn waa waxyaabahay leeyihiin oo ka mid a wax walba in xoogga lagu suuliyo ama muruqa lagu isticmaalo go-aanadeeduna ay yihiin si degdega waxad iyo goor loo gaadho waanu nafas tawiil ama wax in badan la daraaseeyey ama laga fekeraa way ku adagtay waxa intaa dheer waa bulsho inta badan ku salaysan tacasubka qabaliga ah oo ninka qabiil ka dhashay qabiilkan inta badan wuxuu u isticmaalaa lilximaaya inay ilaaliyaan mujtamaca waxyaabo badan aanu ka helayna uu ka helaya waxaan aad u xasuustaa eray nin dhallinyarii maalinuu jabuuti iga yidhi nin dhallinyaro dhugdhuglay wata ayay yidhaahdeen waxaad bixisaa insurance-ka gal markaasuu doodayo wuxuu lahaa anigu insurance-ka geli maayo waayo baa la yidhi wuxuu yidhi anigu reer ban ka tirsan oo qaadhaankiisaan bixiya marka baashan hadday cid wax yeeshana reer kuma bixin haddii kalena yacni waa dawla taxta dawla meel buu ka tirsan yihi markaa wuxuu ku andacoonaya uu leeyahy anuu insurance-kan dawladda geli maayo waxaana sheegaysaana qaadhaan reer baan ku jiraa hadday baasho cid wax yeeshana reerkaa bixinaya reerku hadday cid wax yeelaanna anna waxbaan ka bixinaya therefore uma baahni buu leeyahy inaan nidaamka qabo ficlan qaabkuu bukaraya waxbaa ka jira waayo dadkani waxay waayeen meel kaloo ay ku tiirsadaan waxay ku kalliftay inuu wax walba reer dabada saaro oo markaa gar iyo gardarraba inuu iyaga ka tirsan yahay reeruhu mashkiladooduna waa iska dhibaato badanta carabtii hore waad moodo mararka qaarkood aan islaamala mujtamacaadkeena aad bay isugu dhaqan dhadhow yihin intaan islaamku soo degin
ayaa waxyaabaha lagu faano waxa ka mid ahayd un dee reernimada iyo in reerku cidda kale ka xoog bata iyo waxyaabaha la halmaala iyo dagaalka iyo dilka iyo waxaan inaanay wax qiimo badan samaynaya ahayn. shaacir carbeed oo la odhan jiray shadaaq ibnu yacmar ayaa gebyayey markaa tolkiibuu u gebyayaa inay dagaalamaan. wuxuu taxriid buu ku samaynayaa boorin. markaasu wuxuu leeyahay qaatili ilqawma ya khusaacu walaa yudkilannakum min qitaalihim fashalu alqawmu amhaalakum lahum shacrun fi ra'si laa yantashiruna in qutiluu. dagaalama buu leeyahay khusaacay oo yaan marnaba dagaalka baqa idinka soo gelina fashilina riisaninkiisa laakiin u fiirso ninkan. warraggu waa rag idinla midoo timale buu yidhi oo hadday dhintaan iyaba feedhan maayaan. yacni qiimuhu wax ku qiimaynaya waa dad timale, hadday dhintaan iyaba dhimashada ku feedhan maayaane buu leeyahy wax iska celiya. waxaan garan karnaa jaahiliyaadka carbeed say u dagaal jeclaayeen mararkay waayaan colkii fogaa marka la waayo cadowtinimada shishe baxdo xagga soka isugu soo noqon jirin. waayo reerihii shishe la iska celinaya marka la durkiyo meel kale ma hadhina waa inaad kuwan xiga unaad garbisaa. markaasuu gebiyayo wuxuu lahaa wa axyaanan calaa bakri akhiina idaa maa lam najid ilaa akhaana. dagaalkugu tilmaayo inu iska ammaanyo mararka qaarkood markaan weyno cid kale buu yidhi kuwa noo dhowun baanu ku qaadnaa buu leeyahy waa markii cid kale loo waayo. waxaad garan kartaa soomaalidu maxay tidhaahdaa muxuu ahaa ciddaana in adeerur ahaw walaalkaana wiilul ahaw soo mu ahayn waxaagaasi oo kale ah. yacni cid walba uu iska ilaalinaya. walaalkii buu leeyahy wiil u dhal kaa difaaca berrinta haddaa isagana isqabataan kuwa kalena in adeeraya wuxuu lahaa almost waa nin raba inuu wax celiyo oo dagaalu jooga. waa dad runtii aada u dhib jecel bay ahaay. yani waaxid minhum ayaa faras yar buu lahaa, faraskiisa yar buu koobcinayay. marka faraska yar buu gabay u tirinayaa, laakiin gabayga kan waxaad ka arkaysaa caqliyaddu ku fekerayo. wuxuu ku fekerayaa ida almuharah wuxuu leeyahay haddii faraskaygaa yar dhabarkiisu uu fuullimaad gaadho ilaahay ow reeraha dagaalka dhex guulaya. yani wuxuu rajaynayaa mar uun faraskaasi intuu koobco dhabar la fuulo intuu yeesho dabeetana ilaahu marka ayaa dagaalka dida buu leeya waxaan dhiga hala arkay. waxaynu garan karnaa yani adabka soomaaliyeed waa layga badiyaa sidaa daraaddeed baa laga yaabaa ku qolo la nooca un inaan idin tiriyey. ka soomaaligana lagama waayan haddii nin adiibi maanta joogo intaan gabay af carabi ku sheego soomaaliya uu soo helaya waan hubaataa waayo waa la nooco. waxaa jirta nin shaacir jaahiliya wuxuu lahaa in ana lam ansur akhii wa huwa daalimun cala alqawmi lam ansur akhii xiina yudlamu. walaalkay buu yidhi haddaanan u gargaarin marka uu wax dulminayo nacasnimadayda buu ku leeyay ma berrinta marka la dulmiyaa baan u gargaaraya. yani waxa weeyaan marka horeba waa inaan gargaarka la dhinac taagay maalinta wax dulminayo, haddii kale berritana waxba tari maaya buu leeyahy marka isaga la dulmiyo. nimankani waxay xad ka gaadhsiisnaayeen jaahiliyada carbeedaan tilmaamayo waayo waa badwi ku salaysan casabiyada qabaliga iyo nidaamkeeda. waxay xad ka gaadhsiisnaayeen uu nin tolkiina caayo qolo kalena uu ammaano. sabab keliya buu tolkiina u maagayaa, reeraha kalena uu ku ammaanaya. reer kale u ammaanaya, reerkoodana wuu maagaya, wuu caayaya. muxuu reerka kale ku ammaanaya? muxuuse reerkooda ku maagaya? wuxuu leeyahay laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana. hayaa ay markay yidhaahdaan buu yidhi nin reer hebeli tolkii ma weydiiye war maxaa dhacee war mahay la dhinac yaacaan buu leeyahy. annaguna markaanu soo qaylin unbaa odhanaysaa buhi maxaa dhacay maxaa dhacayda naga daayuu diidaya. markaa wuxuu leeyahay inaa riisaningii weydiisaa waa ceeb. tol baynu ahayn qaraabaynu caynkan mar haddii in la yidhaahdo hayaydu yeedho waa inay dhinaca rartaan buu leeyahy. laakiin hadda ay tidhahdaan war maxaa dhacay see si maaha buu leeyahay saas. waxaanu leenahay caqliyadaasi waa caqliyada badwigu uu nooliyey. waxaan ku tilmaami karaa inay tahay waxyaabaha dhibta ah ee ayna haysta qaar ka mid a.